ilaali waqtiga waxbarista tusaale xarunta aad ka shaqaysid waxa aad ka qaadataa gunnadaas aad qaadataa haddii $1 laga dhimo qayladhaan iyo cabaad iyo maxaan ku raahdaa ishag codsi iyo cabasho wax aan la kala garanayno fara badan baad maamulka isku geey doontaa wax la og yahay oo caadada bini'aadamka la socota weeyaan laakiin waxaad ogaataa sida dhaqaalahaas xisaab ugu baahan yahay ayaa waqtiga ardayga aad wax ku baraysaana xisaab ugu baahan yahay ilaahay uga cabso waa marka koowaad marka labaad waxa weeyaan ilaali waqtigaaga si ardayguna waqtiga u ilaaliyo waxa ku xiran sharafkaaga waxa ku xiran fahamka ardayga waxa ku xiran jacaylka maadada waxa ku xiran waxbaristaada in la jeclaado waxa ku xiran waajibkaaga inaad gudatay marnaba ardaygaaga ha barin wax ka duwan oo aan ka ahayn qiimaha macallinimadaada ha qaraabaysan cadaalad ummad fara badan oo ka dhaxaysa gacanta ku haysa ardayda galaaska aad u dhigaysay badankood inaysan fahmin waxa aad sharaxday casharka shalay aan ugu adag haday mawduucu noqdo بدل wadiiqada aad wax ku leeyahay raadi xal kale oo kaabi kara fahamka ardayga ogaado inuu leeyahay walaal fara badan oo aan ku aabba iyo hooyo ahayn oo adigu aad ku ka tahay macallin ha tusaale halkaas ha kula aad shaqada macallinimadu sidaas maahan qofka gidaarka fadhiya asaga noloshiisu sida u dayacay ee meesha fadhiya un baa dhaliila maahane shaqada macallinimadu sida maaha tusaale shaqada macallinimadu waa shaqo cibaado ah macallinkii maamulkii hadda jangooyay حسدا لو سوسي وقتك هو دقدق مالين كستا مية مالين كستا ماها مالين كستا وقتك دقدق ما waxaad xoog saartaa waa diirada isku geysa waxa weeyaan inay jirto jadwal adiga aad samaysato gacantaada ku aliftay waqti adiga aad aliftay juxa waxa laga sheegay qeysooyinkiisa ay sheekooyinkiisa waxa kamid ah waxa la yiraahdaa dameer ayuu suuqa keensaday sidaaba dameerkeenina gurguriyay ninkii baa dameerka inuu gadaal kala wareego si uu iskaga fiiriyo bal dameerka iyo muuqiisa iyo miisaankiisa dameerkii baa haraatiyay ninkii dameerkii markuu haraatiyay buu hore haddana ka soo maray dameerkii ninkii waa qaniinay wuxuu yiri niyahow inta carooday buu wuxuu yiri war waxaan bahalkan aad soo kaxaysay cid ka iibsanaysa ma laha jac wuxuu yiri in la iga iibsado ma rabe dhibkiisa in la arkaan suuqa u keenay marka sida sax waxay tahay shaqada macallinimada dhaqaalaha la leeyahay dhaqaale male iyo waa maxaan ku raahday lagama taajiro iyo taajirnimo ma ugu soo baxay qof macallinku marka koowaad horta suurad xumay waxyaabaha uu sameeyay waxa uu sameeyay shayga uu sameeyay waa shayga suurad xumaynaysa laakiin ha suurad xumayn arday asagii ha u bedelin yuusan noqon waxa laga hadlayaa asaga laakiin ha noqdo ficilka tusaalaan haddii aad iminka u soo qaadato arday foodo sameeyay ama wuxuu la dagaalamay fasalka la dhigta ka waran haddii aad uga sheekayso oo xujo weydiiso su'aal uga dhigto dagaalka uu sameeyay adiga iyo Maxamed oo aad isdagaasheen haddii uu banaanka dugsiga u bixi lahaa ee markuu banaanka u baxaa ay ilmo kale isdagaali lahaayeen ilmaha markay isdagaalana maxaad samayn lahayd waa xujo moogtay marka wuxuu ku dhihi doonaa waa ka celin lahaa aqli ma tahay ama suurtagal ma tahay qofkii aad ka celin lahayd cadawga ama cid soo weerartay aad ka celin lahayd adigu inaad gacantaada ku waxyeelayso ha muuqato tusaalooyin aan habboonayn ha la hadin ardayga aqoontiisa dhaawacaysa asagay dhibaysa adiga iyo sharaf dhac ku tahay qiyamka macallinimada ku ciyaaraysa sida yeeli mar waliba waxa aad u sheegaysaa xigmad daliil leh oo raadkeeda la heli karo oo ma taqaanay wax tar ku leh ardayga oo dhiirigelin fiican u noqota taladeeda 34aad waxa weeyaan macallin ha ku dirin ardayga waalidkiisa maamulkiisa intaba waxa ay saameynaysaa niyadiisa waxa ay ku keenaysaa dib u dhac waxa uu aaminayaa inaad tahay cadow fursad helay isla markaasna si uga argudanaya sidaas uu istareensinaya sida darteed waa ka maarantaa wax culays badan adiga kugu masa qaadanayse ardayga waalidkiina ha ku dirin maamulkiisina ha ku dirin ardayda dhexdeedana ha ku fadeexaysan mar waliba waxa aad samaysaa wixii xalka wanaagsan oo ku jira samay runtu ma ahan afata xaraf ee buugaaga iyo adiga aad wadaan sabrada lagu qoray sidaaba ardaydaada ku dhiirigeli u dir ka sax hala soo laabtaan ha keenaan maxaan ku raada ka weydii inay ka tala bixiyaan mar waliba kala tali sida fiican ugu sheeg in ay wax soo baaraan ardaydaada bar si ay u helaan macluumaad dheeraad marka ay soo baaraan ha ka aamusine la falanqay wax ay keeneen ha la jeexjeex si fiican ha u fahmaan in dheeraad oo kala macluumaadkaaga iyo sheekooyinka sheekadaadii ku jira ha dhaxa kala dhaxbaa
adiga hogaankii waxbarista ka ah meesha monitorkii xilligaas galaaska qofka ku jiro mas'uuliyadda hay adiga waaye wax kasta oo dhacayaan maamulka loola dhugdhuglayn maamulka yaan loola sii ordi oo dacwo la gaarsiin mar kasta fasalkaaga dhacdo ka dhacdo sometimes very fasalkaaga waxa laga yaabaa in dhacdo ka dhacdo arday ka amar diido inaad mar kasta maamulkii inta u yeerto xafiiska la keena la bixiyaahay mudnaanta hasinin sometimes ka gudub xitaa asoo ka amar diiday banaanka hadhow markuu yimaadana maxaan ku iraahdaa ishagan oo nasaxay oo dhinac kale u waan taladeeda 36aad waxa weeyaan macallin marka aad ardayda wax barayso madadaaladu waa laga maarmaan aad bay u jeclaysanayaan ardayda wax baraysid inaad sheekooyin ku madadaalaysid haddaba waxa lagaga fadhiyaa ama lagaga baahan yahay inaad sheekooyinka aad ku madadaalinaysaa ay noqdaan sheekooyin cilmi ku dhisan kaftan iyo xaraabo iyo sheeko macaan iyo maxaan ku iraahdaa ii sheegeen wax wanaagsan asluub fiican ka tarjumaya xigmadiisa sare u qaadaya cashirka ku farxad gelinaya aan caajis gelinayn haddaad haysato 40 daqiiqo laba qaybood u qaybso qayb kamidana hal kaftan ku dar qayb kamidana hal kaftan oo kale ku dar qayb kamida sheeko xigmad badan ku dar tusaalahan qaybka kalena sheeko kale ku dar qaybka kamida dhacdo ku dar xusuusin leh qayb kamida su'aal ka dhig qayb kamida sidaas oo dhigo muhiimadu waxay ku siinaysaa marka in aan cashirkaaga laga caajisin iyadoo ardayda u sii jeclaysanayaan xiisadaadu ay dhamaato sidaaba maxaan ku iraahdaa ii sheegay madadaaladu way fiicantaa laakiin madadaalada dhaqanka xun ka turjumaysa ee aan haboonayn ma fiicna xitaa ardayda inaad ku dhiirigelisaa ma wanaagsana madadaalooyinka adiga aad ka sheekaynaysa adigii you are the best example tusaale ugu wanaagsan ardaygu haysta waa adiga halka macalinka bedel cudurdaarka ka bedel meeshaas cudurdaar kuma haboona dadkani meesha ku fadhiya dad laga maqnaada ma yeesan jirin wax hadii ay jirto wax ku awood tiray oo aadan maanta la iman karin taa waa cudurdaar la fahmi karo ma fahmaysa laakiin ayaduna yeesan fara badan